ay idaacaddu baahinaysa laakiin barnaamijkan waxaan si gaar ah ugu eegaynaa farsamo ahaan maxay tahay waxyaabaha dastuurka ah ama sharciga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dawladda dhexe aan ku hormaro wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay yihiin awoodaha federaalka uu siinayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaase ka mid ah waxyaabaha dastuuriga ah ee labada dhinac ay isku hayaan waa mahadsan tahay waa salaamaya aadan iyo sax runtii saan waad ogtihiin dastuurka hadda aan haysano oo soo dhamaystiray 2012 awoodaha ma kala qaybinin sababtan wax kale ma aho awoodo markii loo kala qaybinayo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa inay wada fadhiyaan miiska unugyadii ka tirsanaa federaalka 2012 waxaa dhisnaa keliya puntland marka waxaa lagu heshiiyey awoodaha badan in dib loo dhigo markii ay soo dhamaystirmaan maamul goboleedyada in miiska lasoo wada fadhiisto marka 4 awood keliya ayaa la qaybiyey oona gaar loo siiyey dawladda federaalka ah 4taasna waa awoodda arrimaha dibadda ah midda difaaca ah midda mataqaanaa siyaasadda dhaqaalaha ah iyo midda jinsiyadda iyo immigrationka intii kale ama tacliin ha noqoto ama beer ha noqoto ama ha noqoto bey'ada ama caafimaad ama sidii loo kala qaybin lahaa lagama heshiinin maxaa yeelay miiska lasoo wada fadhiistaa leeyahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka Jubbaland Aadan Ibrahim oo xirsi marka aad fiirisid awoodaha hadda dastuurka sida uu sheegay kan federaalka ah Jubbaland oo kale maxaa u aragtaan oo uu dastuurku qabaa in aad dawladda kula shaqeysaan oo idin degsan hadda waxaan joogaa wasaarad kale oo qorsheynta iyo la yiraahdo iskaashiga caalamiga ah laakiin ilaa 2012 kaas uu wasiir xoos sheegayo ilaa markii ugu dambeysay oo bishii July aan wasaaradda ka tagay oo la iga bedelay baan ku dhex jiray barnaamijka dastuurka iyo constitutional making process waxaan la yiraahdo marka odaynimada un baan ku hadlayaa wasaaradii haatan ma hayo waxaan ku hadlayaa shakhsinimadayda Soomaalinimada waxa weeye sida uu sheegay wasiir Cabdiraxmaan Xoosh weeye awoodaha dastuurku marna waa residual waxa la yiraahdaa maaragtay intii la qeexay ma ahana inta kale waxa iskale dawlad goboleedka ama dawladda leh marna waa shared oo isla leeyihiin oo waxa weeye waa in la qeexa qeexidii baan ku dhex jiraa wali 4 qodob dawladda dhexe iskale kuwa badan oo maxaa la yiraahdaa sida la ogyahay macquulka ah aysan dawladda dhexe uga iman karin hadda awood dhaqaale iyo awood maxaan ku raashaa shaqaale midna aysan u haynina dawlad goboleedka haya marka 4 qodobna dawladda dhexe iskale qodobo ku dhex ratibmo oo suurad geliyo in ayagana dawlad goboleedyada loo daayo ama tala laga siiyo ama gaar loogu daayo la rabana way jiraan marka nidaamkaas lagu shaqeynayay waxa muhiimadu ay ahayd in la dhameystiro ka wada hadalkii sidii awoodaha loo qaybsan lahaa in la dhameystiro iyadoo qof walba oo wax ku leh oo miiska oo hal cidi aysan oran in soo hartay intaana inaga ale intaan maxaan ku raacdaa qol hebla iska leh wada hadaladii waxa istaagay oo hadda soconin dhibaatadana sidaas oo arkaanay mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiirka dastuurka federaalka Cabdi Fataax Aynab ee Puntland hay wasiir mahadsan tahay walaashay wa salaam ya saaxiibkii wasiir Xoosh iyo wasiir Xirsi runtii sida uu dhigay wasiir Xoosh oo uu faahfaahiyay ayaa dastuurkan Soomaaliya lagu ansixiyay sanadkii 2012 si ku meel gaar ah loogu sii dhaqmo awoodaha gaarka ah dawladda federaalka uu siiyay maaha awoodaha inta kale waxay u baahnaayeen heshiis idinka wada gaaraan state-yada dhammaystiran oo ay goobjoog wada ahaadaan intaasna dawladda federaalka loo xil saaray dawlad goboleedyaduna dee runtii baaxadooda inta la eg tahay iyo meelahay kala joogaaneen waxyaalo badan oo u saamaxaya ayaa jira oo loo baahan yahay in lagala tashado oo wax laga weydiiyo laakiin 4 awood kaliya ayaa hadda dawladda federaalka ah u xil saaran tahay inta kalena waxay muujinaysaa in dawlad goboleedyadu ay mas'uul ka yihiin inay ka shaqeeyaan marka ra'yi ahaan intaa waa isku raacsanahay sida shaqada loo qabanayo ayaa se lagu kala aragti duwan yahay
waa mahadsantahay oo soo noqon doona waxyaabaha lagu kala aragto duwan waxaan rabaa inaan siiyo wasiir Xoosh sida hadda su'aasha koobaad dhamaantiin aad ku qorteen waxay tahay in arrinta koobaad ay tahay awoodaha in aan la dhameystirin qaabkii loo wadaagi lahaa dastuurka inuu weli qabyo yahay in aan weli maamul goboleedyada iyo dawladda intay isla fariistaan aanay kala qaybsan awoodaha iyo howlaha oo aan qoloba meel lagu ogaanin marka goorma isleedahay meelahaas hadda dulduleeladu ay ka jiraan dawladdu waa ay buuxin kartaa haddii xataa ay buuxin lahayd hadda wada hadalladii waa istaageen marka ma la dhihi karaa in laga wada hadlo oo awoodihii la qaybsada laftirkeeda ayay noqonaysaa tan hadda albaabka uu ka xiran yahay falastiin saad ogsoon tihiin xukuumadda iyo prime ministerka waxay magacaabeen hadda ka hor guddi la yidhahdo guddiga wadaxaajoodka wadahadallada iyo ka heshiinta arrimaha federaalka af ingiriiskan lagu soo gaabiyo FNTC fikradaas in la sameeyo ko waxay ka timid iskaashiga gobolada ay samaysteen CIC ay soo jeedeen ay dheheen waa in guddigaas la sameeyaa uu galaa wadaxaajoodka waxyaalaha federaalka la isla leeyahay iyo wax la kala leeyahay guddigiina waa la sameeyey 5 qof ka socoto maamul goboleedyada iyo 6 qof oo ka socoto dowladda federaalka ah iyo ka socoto mataqaanaa Somaliland bishii June heshiisyadii ugu horeeyay sameeyay oo laba heshiis aniga marka sida u fasir badan waxa waaye federaaleyntii wadanka baskiisa yaa la dhisay baski yani bas baabuur camal ah oo engine leh laakiin cagihii aanan lahayn cagihii in laga heshiiyaa si loo dhisi lahaa marka cagihii ugu horeeyay waxay noqdeen kii June aan kusoo heshiino ahaa qayb wadaaga mataqaanaa khayraadka iyo doorashooyin federaal nidaam ah waxaan kaloo guddigaas August July aan ku qabanay shir xamar guddigaas in looga hadlaa nidaam federaal ah oo garsoor ah oo laga heshiiyaa iyo awood qaybsigii intii aan laga heshiinin 2012 waxaa laga soo saaray nidaam ama model baa laga soo saaray August dhamaadkeedii guddigii iyo anagoo la socodno waxaan tagnay Nairobi 7 bari aan joognay ayaga markii dan isku dhaafnay heshiisayna soo gaareen 80% labadaas ay ku soo gaareen ujeedadana ay ahayd in la geeyaa markii isku yimaadaan odayaasha oo ku jira golaha amniga ee qaranka ama National Security Council inay eegana ka heshiiyaan sidii looga heshiiyey mataqaanaa June loogu heshiiyey taas waa taas waxaa kaloo hadda hor yaallo aan wadnaa kolleyba wada hadallo waa bilaaban doonaa waxaan dadka ay leeyihiin khilaaf baa jiro waa la isaasan khilaaf ma yiraahdo waxaan yiraahdaa wada hadallo waa ama dialogue waa marka xataa saa isku haysano waxaan samaynaynaa yani wada hadalan wadnaa waxbaan kala tabanaynaa aan waa maadsantaa aan ka kala hadlaynaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan soo wadno waxa waaye nidaam federaal ah oo maaliyadda ah iyo nidaam sidii dawladda ay noqon lahayd ah dawladda ma waxay noqotaa dawlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku dhisan mise waxay noqotaa mid parliamentary ah madaxweynaha ma la soo doortaa oo dadka la soo doorto mise labada aqal soo doorato inaan ka heshiinaa inaan ka heshiinaa maqaamka muqdisho wuxuu noqon doona inaan ka heshiinaa Somaliland arrimeeda in laga heshiiyaa waxaasoo dhan wax loo yaalo laakiin u baahan in la isku yimaado in la kala doodo oo aniga waxaan aaminsanahay dee wax waa la kala taban karaa laakiin iyadoo wax la kala tabanayo haddana in la wada shaqeeyaa iyadoo wax la kala tabanayo in laga heshiiyaa waxaas shaqooyinka noo yaalan in laga heshiiyaa si aan usoo dhamaystirna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan arrimahan oo maxaa la kala leeyahay maxaa la isla leeyahay aan soo dhamaystirnaa sanadkan dhamaadkiisa in khilaafaadka xataa 75% inay yaraan doonaan waa mahadsantahay waxaan rabaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan siiyo aw xirsi marka aad fiiriso hadeertaan dawladda waxa muuqata in aan awoodihii la kala saarin adinka ka maamul ahaan maxaa ka rabtaan dawladda federaalka ah qaab sidee ah rabtaan inaad ula dhaqantaan horta falsafada waxa maanta labada qof oo Soomaaliga markii by nature iyagoo dastuurka isla soo baxay oo buugii isu haysto qodob taabanaya hadda aragtid waxay ku heshiin waayeen wax kale si kala la isu hayaa Soomaalida dastuurka ma heshiin waydo markii si kala la isu qabto baa kitaabada iyo dastuur iyo la isu raacdaa iyo maaragtay
iyo waxyaabo kale horta in la heshiiyo markaas ka dambana maxaan ku dhahaa dastuurkii isagoon dhamaystirnayn laga wada hadlo oo sidii loo dhamaystiri lahaa loo wada hadlo oo waxaana kala qabta aan kala qaadana horta yaa xal ah innaga waxaan aaminsannahay oo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo dad Soomaali aan wadanahay system baan ku wada jiraa waxaan u xilsaaranahay dadkayga noloshiisa inaan hagaajino oo aan sare u qaadno waxaan rabaa in ay dad badan ogaadaan oo Soomaaliyeed ay wasiir xooshna ka maqlaan in aanu dastuurkii dhamaystirnayn si loo dhamaystirana loo baahan yahay inay dowlad goboleedyadu miiska fadhiyaan taa inay cadaato way dadkii Soomaaliyeed waxaa laga darjiyay dowlad magaceeda la yiraahdo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madax loo yahay federalismkina waa la necab yahay waxa la federalismka dhibaato waaye meel baa laga keenay federalismka saan waaye magaca dowladana marka waxaan u maleynaa marka hore in la bedelo narrative inay tahay sida loo wada hadlaayo oo wixii dadkina loo cadeeyo inagoo dhan ay noo cadahay dastuur aan dhamaystirnayn inaan ku wada joogno si aan u wada dhamaystirnana inaan ka wada hadallo ay tahay haddii aan wada hadlayno inaan miis wada fadhino wixii aan isku ognahayna ay shaqeeyaan wixii aan isku ogeyna aan la arag oo maxaan ku raahdaa sidaa loo wada shaqeeyo inay tahay innaga wada hadal baan aragnaa inuu laga maarmaan yahay wada hadalkaa ka horna inay